Aweysin lagu sii xoojinayo qoondada haweenka ee Somaliland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaa ka qayb galay warbixin arintaas ku saabsan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Faisal Fifa. aweysi ka balaaran oo habeenimidkii xalay lagu qabtay halkan oo xarunta dhaqanka Hargeysa isla markaana agaasimkiisu waa mid u reeban mas'uuliyiinta sidoo kale madaxda wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland oo kaashanaya hay'adda qaramada midoobay ee UN Women ayaa mid ujeedadiisa salka ku haysa falanqaynta sidoo kale si ambaqaadka qorshaha golaradka wasaaraddu xilligan ugu jirto meelmarintiisa ee heerka qoondada haweenka sidoo kale iyo doorkooda hogaaminta talada dalka umdooyinkii laga soo gudbay mas'uuliyiinta wasaaradda si weyn ugu fogaanayn ololihiisa ay wax wada jir uga soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda saraakiilka kala socda hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale midowga Yurub madaxda xarunta dhaqanka Hargeysa fanaaniin abwaano qoraaye iyo sidoo kale dhalinyaro tiro badan oo dhankooda si aad u dhuganay xalay aweysinka si gaar ah diiradda loogu saarayay ololaha qoondada haweenka waxaana bilowga horeba halkaasi warbaahinta sharaxaad gaaraneed ka siisay qabanqaabada guud ee kulankan iyo sidoo kale ujeedada gaaraneed ee laga leeyahay Luul Aadan Geedi agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland. waxa soo qabanqaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyadoo iska kaashadeen hay'adda loo yaqaan hay'adda qaramada midoobay ee UN Women iyo hay'adda David oo caawisay UN Women ee ah deeq-bixiyayaasha caalamka doodani waxay ka hadlaysay muhiimadda ay u leedahay haweenweynaha reer Somaliland sida ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda talada dalka taasoo muhiimad u leh gaar ah haweenka reer Somaliland iyo sidii yoolasha waara ee horumarka adduunka lagu gaadhay ee qaramada midoobay adduunyada u jeexeen sida ay isula jaan qaadi lahaayeen ee loo eegi lahaa Somaliland iyadoo la eegayo sida ay uga faa'iideysanayaan haweenka reer Somaliland. waxaana intii munaasabadda soconaysay halka lagu soo bandhigay heeso buraanbur gabayo iyo sidoo kale dood salka ku haysa falanqaynta isla qoondada haweenka siyaasadda dhaqaale ahaan dumarku ma haystaan awood ay kaga qayb gali lahaayeen waad ogtihiin maanta dee gabadha habshiid oo kale ma jirto ama in hebel oo kale ma jirto waxa weeyaan maanta nimankeena ganacsatadii hebel bay huraan lacagta hebel bay lacag siiyaan laakiin gabadh dalkeedu u sharaxan ma siiyaan rasuulka calaih salaatu wasalaam xadiis waxaa jiray uu mid ka mid ah dumarkiisa uu talo fiican ka qaatay maalin waliba aad u cagkarnayd xaaladdu taas waxay tilmaamaysaa markaa in dumarka talo la weydiin karo in lala tashan karo waxaana dhankiisa isna halkaasi ka hadlay qoraa jaamac muuse jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa oo dhankiisa si weyn u soo dhaweeyay qabashada kulankan u gaarka qoondada haweenka iyo dadaalada lagu jiro dhaqangalkiisa waxaan doonayaa sida caawa la isugu xidhaayo yoolasha horumar waara iyo arrinka ku saabsan inay dumarku ka qayb qaataan siyaasadda inay caawa halkan ka soo baxdo marka caawa haddaynu af ingiriisi erayo ingiriisiya dhex gelino oo aynu isticmaallo erayo jargonisahoo dadku aanay fahmaynin ma noqon doonto fariinta rasmiga aynu doonayna inaynu caawa halkan ku wada hadalno marka waxaan aad uga codsanayaa qolada halkan imanaysa inay sidoo kale usoo diyaargaroobaan oo af Soomaaliga ay u adeegsadaan erayada aynu halka ka wada hadli doono aweysinka ayaa si weyn intii u socday jiibtii jaanta la isku helay muhiimadda gaaraneed ee ku duugan in haweenku door ku yeeshaan hogaaminta talada dalka waa qorshaha xilligan wasaaraddu si gaaraneed diiradda ugu hayso Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV Somali Cable Hargeysa.